Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan ku soo dhawo muuqaalkan Photoshop markaan joogno waxaa muhiima inaan u fiirsano shaqada aan qabanayo markaan Photoshop joogno waxaan qabanaynaa waxbaan koobinaynaa waxbaan soo color ka bedelaynaa waxbaan cabirkiisa bedelaynaa waxbaan dheeri aan kusoo daraynaa object aan kusoo daraynaa marka waa su'aasha meesha taalo muhiimka in la isweydiiyo waxay tahay waxaan color ka bedelayno ama maxaan ku raahday koobinayno ama maxaan ku raahday dee aan wax ka bedelayno size-kiisa weyneynayno oo transform garaynayna muxuu yahay muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa waxaa loo yaqaan image principleska iyo baseka image ku dhisan yahay waxaan kaloo ku eegi doonaa si gaar ugu fiirin doonaa image size-ka resolutionka qaabkii qofku ama qofka userka Photoshop ku shaqeynaya uu image size-kiisa u saxan lahaa resolutionka u baahan yahay u fariisan lahaa waxaan kaloo iyadana si kooban u sii fiirin doonaa markii la joogo printing iyo markii la kala joogo digital wuxuu isticmaalaysid ama printing waxa soo saaraysid qaabkaad u adjust garaysan lahayd size-kaaga iyo waxaan ku raahday dariiqada mari lahayd iyadana si gaar ah u fiirin doonaa marka si aan u soo furno filekan ugu talagalnay muuqaalkan waxaan tagaynaa folderkeeni inoogu jirin tutorialka waxaan kasoo dooranaa introduction baan wali ku jirnaa waxaan ka dooranaa image info image size waxaa soo furanaysaa marka size-ka waxaa kusoo furanaysaa image size-ka u horeeya labada kan 0 image size 0 soo furanaysaa marka soo furto wax kusoo baxaya sawir saas oo labada tufaax ka casi ka cagaar saaran Photoshop markaan joogno marka Photoshop wax ku shaqeysaa wax loo yaqaan raster image wuxuu ku samaysan yahay ama ku dhisan yahay wax loo yaqaan pixelsku waa square yar oo sameynaya muuqaal ahaan jiritaanka objectiga ku muuqda ama sawirka halka ku yaala tusaale ahaan qofka bini aadanka noole walba wuxuu leeyahay unugyo Soomaa unugyadaas waa waxa isaga markay isu tagaan sameeya organiskiisa kadib markay organiska isu tagaan sameeya wax loo yaqaan dee qofkii caadiga oo dhameystiran bay sameynayaan oo wuxuu noqonayaa qofkii wax la taaban karo la arki karo loo jeedo sawirkuna saas oo kale wuxuu isticmaalaa pixelskaas wax dhisayaan particularly objectiga tusaale tufaaxaas oo kale pixels buu dhisayaan tufaaxii iyo tufaax kale iyo background la isu geeyana maxay sameynayaan sawir documentigeeni oo caadi ah oo maxaan ku dhahay noo dhameystiran oo backgroundkii xiisi dhameystiran wata bay noo sameynayaan marka pixelkan wuxuu ku dhisan yahay tusaale ahaan tufaaxan wax ku dhisan yahay tusaale ahaan haddaan soo zoom garayno wuxuu ku dhisan yahay si fiican u fiiri waxaa ku muuqanaysaa square yar oo aad halkaa ka arki kartid oo markaas goortii aad soo meesha gudaha soo gashidna sii badanaya marka koona aadina halkaa kusii dhamaanaya marka kuwaas waxaa la kaaga muuqda waa Photoshopkii oo ku tusaysa pixelska uu ku dhisan yahay sawirkaaga markasta oo pixelsku bataana waa markasta oo resolutionka ama maxaan ku raahday muuqaal ahaanta sawirka ama objectiga meesha ku yaala oo muuqaalkiisu wanaagsanaado waa markasta oo ay wanaagsanaato maxay pixelsku ay bataan muuqaalku wanaagsananaya markasta oo ay yaraadaana muuqaalku yaraanaya that's why pixelsku ay ku bataan ay faa'iido ugu jirtaa in muuqaalkaaga resolutionkiisii inuu sawirkaaga resolutionkiisii uu fiicnaado oo ay noqdaan wax badan waana waxa marka sawirka la set garaynayo resolutionka loo xadido qofka resolution badan rabo oo sawir badan rabo resolution badan gashanayo sawir balaaran weyn oo rabo resolution badan gashanayo sawir yar rabo kooban aan culays badan lahayn aduur wax yar uu isticmaalayo inuu resolutionkiisa yaraynayo marka waxa kaloo muhiim ah inaad maskaxda ku haysid maadaama wixii uu pixel ku dhisan yahay qofkii ama userkii ku Photoshopka isticmaalayay waa in uu fahanka haysta qaabkii uu ilaashan lahaa maxaan ku raahdaa pixelskiisaas maadaama wixii dii pixelska uu yaraado uu sawirkii resolutionkiisa yaraanayo uu over ka dhigana ay ka dhumayso wixii scale-kiisii u xumaanayo sida guud waxa badanaa maanka lagu hayaa waxay tahay scaling-ka markaad sawirkaaga scale garaynaysid haddaad yaraysid oo ka dhigtid maxaan ku dhahay wax yan baaba'san oo markaad inta confirm garaysid hadhow soo weynaysid pixelski way kala dhumayaan wuxuu noqonayaa hadda fiir pixelski wax noqdo shacaaba galay tufaaxi markii hore waxa wax nadiif oo geeskiisa loo jeedo laakiin markaan yaraynay kadib aan soo weynaynay wuxuu noqday wax maxaan ku raahday shucaa ku jiro aan si fiican loo arkayn haddaan sii weynayo ka waran oo ka dhigo maxaan ku dhahay oversize sidoo kor u sii weynayo
meesha dabcan tufaaxa geeskiisii ma muuqdo wax mada resolutionkii in uu saa lagu baabi'iyey resolution ka baaba'ay. marka si aad u ilaashatid waxaa u baahan tahay sawirkaaga marka u horeysa aad soo gelisid maxaan ku rahday meesha sizekiisa cabirkiisa inaad xadidid weynayntiisa ama scalingkiisa markaad weynaynaysid ama yareynaysid inaad controli kartid wax zero ahna aadan geyn wax over aadan ka dhigin waayo labadaba waxay ka akhribayaan resolution ka akhribayaan. marka taasna waa in qofka userka uu maanka ku hayo oo ogyahay in resolution ka dhumayaan hadii uu scale-kii maxaan ku rahday sawirka sidii markiisa hore u samaysnaa oo wax dheeri ku sameeyo. dabcan wax waa ka bedeli kartaa, waa kala rayn kartaa, waxyaabaha waa ku samayn kartaa, cabirkiisa waa yareyn kartaa, waa weynaysan kartaa, laakiin inaad wixii ka badbadisid wax badan bay ka dhumaysaa resolution-kaagii pixelskii wixii bay ka kharabaysaa. taasna inaad maanka ku haysid oo ay noqoto wax aad la socotid baa muhiima. haddaan inta uga gudubno image principleska ama image base ahaan wuxuu ku dhisan yahay waxaa kaloo muhiim iyada image size-ka qofkii userka qaabku u set garaysan lahaa ama maxaan ku dhahay image size hadduu rabo inuu arko ama wax ka bedelo ama resolutionka wax ku daro in iyadana uu og yahay waa wax aad muhiima. waxaa u baahan tahay markaad rabtid inaad image size-kaaga ama resolutionkiisa aragtid ay cabir ahaan inta uu ka kooban yahay documentiga halkaa kugu jira waxaad u baahan tahay inaad tagtid image then aad kasii dooratid image size. image size markaad ku dhufatid waxa kusoo baxaysa boxkaas ama windowska saabsanaysan. windowskan waxyaalo badan buu kuu suurtagelinaya. horta marka hore wuxuu ku tusayaa pixel dimension oo ah actual size-ka sawirka halkaa kugu jira documentiga kugu jira photoshop ku dhex yaala hard disk ahaan data size-kiisu intuu noqonayo. markaad hard disk-ka ku shubtid ma 5GB ama 6GB megabyte everything uu yahay halkaas kuu saaraya. so waliba exact kuma sinay laakiin estimation caadi ku sinay ma wax inta u dhow noqonaya marmarna wuu saxaa laakiin badanaa estimation ku siiya. marka hadda tusaale ahaan Kenas waa 5.23 megabytes intaasuu buu noqonaya ama wax u dhow halkaas aad estimation ka qaadan kartaa. wuxuu kaloo ku siinayaa in pixels width intuu yahay iyo height intuu yahay waxna waa ka bedeli kartaa maxaan ku rahday season ugu daysan kartaa. waxa kaloo hoosta meesha hoose boxka ku sii xiga asagana si gaar ah square gooni ugu jira waxa weeye wax isagana square gooni ugu jira waxa weeye wax loo yaqaan document size-ka caadiga ah oo ah meeshii size-kiisa caadiga ah ka bedeli lahayd oo pixel isticmaalayn. tusaale ahaan meeshan width-ka way dhinaca balca ahaan intuu yahay geeska min corner ilaa corner baalkeen intuu yahay height-kuna waxa weeye min base-ka hoose ilaa kor inta uu yahay cabirkiisa. kor dhinaca wuxuu yahay 16 cm korna hoosna wuxuu yahay maxaan ku rahday 8.18 cm resolution-kiisu waa 300. marka waxa halkaa kaaga muuqata maadaama size-ku halka ay ku qoran tahay document size oo width yahay leedahay waxa ka garan kartaa in wixii la bedeli karo oo adii maxaa walaay adjustment modify garan kartid wax kale ku samayn kartid. tusaale ahaan haddaan 60 bit haddaan 20 ka dhigo si fiican u fiiri horta halkaan jeeg ka qaad wax sababtu waxay noo tarayso arki doonaa. haddaan ka dhigo 20 ka waran halkaas 60 bit 20 haddaan ka dhigo oo okay iraahdo fiirsa documentiga wax ku dhacay وويناد طبعا سكيلكي وحتى تفاحي wax fool xumay noqoto nooc kale ah haddaan ku soo noqono oo height-ka weynina ka waran 8 buu haddaan 10 ka dhigo 15 ka dhigo soo qaad wuxuu noqonayaa طبعا height ahaan buu dheeraanaya oo wixii dhinacii hoose buu dheeraanaya laakiin dhinacii kale in waxba kama ayna bedelayo. resolution-ka haddaan yareeyo ka waran 100 baan ka dhigay resolution-kii muxuu noqonayaa baalkii resolution-kii waa yaraanaya pixels-kii ka koobnaa maxaan ku dhahay documentigaygu baa yaraanaya then waxaa yaraanaya size-kii guud ee documentiga meesha ugu jiray. click baan siinaya طبعا intuu la ekaayo intuu hadda la ekaada waa arkaysaa. haddaan ku noqono meesha wax si fiican resolution-ka haddaan yareeyo ifan waxa yaraanaya pixels-ka markay yaraadaan waxa yaraanaya size-kii uu hard-disk ahaan uu ka qaadan lahaa. awal wuxuu ahaa was maxaa la yiri wuxuu ahaa 5.23 megabytes waa laakiin hadda muxuu noqday 595 gigabyte buu noqday 0.3 gigabyte 595.3 gigabyte
markasta oo resolution-kaaga bedeshid markasta oo size-kaaga yaraado pixelskina kaa dhumaan haddaad resolution-ka yaraysid waa yaraanaya sawirkii haddaad badisidna waa badanaya marka resolution-ka waxaa loo isticmaalaa laba mid baa la isticmaalaa sida guud waxaa la isticmaalaa 300 inay isticmaashid ama inay isticmaashid 72 waa laba resolution oo common ah labada resolution waxaa loo kala isticmaalaa markii aad wax isticmaalaysid ku dhisan digital ama maxaa ka rahdaa ay u isticmaalaysid web oo kale waxaad isticmaali kartaa 72 ama waxaad isticmaali kartaa oo kale boqol wax saasa laakiin 300 waxaan isticmaali karnaa tusaalahan markii tusaalahan wixii wax la daabacayo uu yahay tusaalahan oo size-kiisa inuu yahay tusaalahan A4 daabacayo marka A4 hadaan rabo inaan printero oo dhisankeeda sameeyo resolution-ku waa 300 maadaama A4 yahay hadduu yahay ka waran A4 wax ka weyn oo mitir gaaraya cabirkiisu mitir gaaraya 70 waa isticmaalay maadaama uu weyn yahay marka qaabkaas loo kala isticmaalo labada resolution resolution-keena marka sidiisii waxba kama bedelayno sidiisii baan ku celinaynaa qaabkaas loo bedelaa marka resolution-ka haddaa yaraysid faylka waa yaraanaya haddaa cabirka yaraysid waa yaraanaya si aan u soo saarnana waxaan tegaynay maxay ahayd image baan tegaynay kadib image size baan ka dooranayna haddaan shortcut ahaan usoo saaray ka waran waxaa isla qabanaya control alt iyo I oo isoo boodaya markuu isoo baxo marka halkaas waxaan rabo ka modify gareynaya halkan markaan si fiican u fiirino iyadana haddaan jaagga saaro halkaas waxay ii suurta gelinaysaa in haddii aan size-kayga bedelo halkoo kale 10 ka dhigo kana inuu isbedelo oo documentigii photoshopkii waxay ku ilaalinaysaa dimensionkii ama constraint-kii proportionka ratio-dii ku ilaalinaysaa haddii xagga 20 ka dhigtid xaggana 10 bay noqonaysaa haddaan xagga ka dhigo 15 xagguna waxay noqonaysaa 0.16 haddaan xagga 30 ka dhigo xagguna 15 bay noqonaysaa marka si uusan faylkaaga wax qaab daran oo maxaa kale dhinac u dhuuban kaaga noqon oo loo ilaaliyo constraint-tii proportionka waxa u baahan tahay halka check saarsatid then ay markasta aad bedeshid kana kula bedelmo oo ay noqoto hadii inta looga baahan intana looga baahan photoshop hore ka daraysa marka qaabkaas loo isticmaalaa maxaa ku dhahay labadan check da saartin qaabkaas ay ku faa'iidadaas ay ku leedahay waxaad ku qabanaysaa marka qaabkaas loo bedelaa image size-ka oo aad resolution-kiisa u bedelan kartaa waxa kale muhiim ah inaan ogaano maadaama waxaan uu ku yahay maxaa ku dhahday wax ku dhisan pixels oo resolution-ka hadaan yareen naga yaacayo waxaan u baahnaa marka inaan si fiican ugu sii faahno inaan soo furno faylka labaad isla meeshii inoo yaala control iyo open bas qabanaya si shortcut meeshii ugu soo furmo image labaad noo soo furmo marka image-ka labaad waxa yaala ninka testeraha halka kaaga muuqda kan cabirkiisu waa 4 cm times 5 cm kana waxa way 4 cm times 5 cm hadaa si fiican u fiirisidna wajigiisa kan xogaa wax madaano nadiif yahay laakiin kan wax madaa jijimi ku jira indhihi xitaa caadi ma muuqdaan si fiican isu fiirada different u dhaxayo Soma kan xogaa shacaba ku jira kana waxa ku jira waa nadiif taas waxay ku tusinaysaa resolution-kiisa kan waa 300 kana waa 72 markasta oo resolution-ka badino waxay ka dhigan tahay markasta oo pixels-keena bataan markasta oo resolution-keena uu yaraadana waxay ka dhigan tahay markasta oo pixels-keena yaraadaan haddii pixels-ku yaraadaana sawirkeena waxa ka dhumaya waxa loo yaqaan muuqaalkii quality-ga baa ka dhumay quality-ga hadduu ka dhumana wixii si nadiif uma muuqanayo marka inaad resolution-kaaga resolution fiican ku yahay oo appropriate ku ah waxa uu isticmaalaysid waxay ku noqonaysaa inay ku ahaato wax maxaa ku dhahday nadiif ku soo baxo ka waran haddaan daabacayo labadaas ka waran oo madbacad ahaan isticmaalay mar walba waxay noqonaysaa maadaama wixii uu yar yahay oo document yar yahay inaan resolution-kiisii badsado maadaama wixii meter iyo waxaas uusan gaarin marka wax different u dhaxay waxaan rabnaa inaan ogaano markaan sameynayno digital ahaan markaan u size gareysanayno markaan iyadana printer ahaan wax u size gareynayno marka waxaan u baahnaa inaan tagno meel cusub control iyo n baad qabanaysaa ama file new baad dhehaysaa labada midun waxaan u baahnaa marka halkaas oo kale waxaan gelinaynaa documentiga magaciisii sample baan gelinay halkaan waxaan gelinaynaa marka haddaan u baahannahay inaan digital wax u sameyno pixel ahaan baan wax u sameynaa tusaale ahaan cabirkeena pixel baan isticmaalaynaa tusaale ahaan haddaan rabo inaan website u sameeyo banner ama aan u sameeyo maxaan ku rahday wax loo yaqaan software oo kale inaan u sameeyo background waxaan isticmaalayaa pixel halkaas waxaan ka doonayaa pixel then waxaan gelinayaa 300 boqol oo kale xaggana waxaan gelinayaa
boqol ama laba wax kale konton oo kale geliyo resolutionka inta raba ka dhigan karaa boqol baan ka dhigan karaa haddaan rabo qaabkaasaan markaa u size garaysanaya oo wuxuu noqonayaa faylkayga fayl aan ugu talagalay in digital aan u isticmaalo haddaan u isticmaali karo printing marka wuxuu isticmaalaysid waxay noqonaysaa in aad isticmaashid oo kale cabirkii caadiga ee banaanka lagu isticmaalay banaanka maadaama wixii uu soo baxay hadhow banaanka pixels ma yaala waxa yaala wax weeye actual size caadi ama centimeter ama meter baa yar soo ma qaab kuwa baan isticmaalayna marka waxaad tagaysaa fayl magaciisa marka ula soo baxdid meeshii un baa bedelaysaa cabirkii intuu ku yahay adiga book haddaad cover u sameynaysid haddaad wax kale u daabacaysidaba cabirkii uu ku ahaa oo dooranaysaa baad soo qoranaysaa haddana meel ku qoran yahay baana gelinaysaa waxaad doonaysaa centimeter ama millimeter ama centimeter baad doonaysaa inchna waa isticmaali kartaa intaas labada saddexdaaba inch waa isticmaali kartaa centimeter iyo millimeter waa common saddexda common ka laakiin badanaa wax la isticmaalaa millimeter iyo centimeter maadaama iyagu ay maxaa ku dhahdaa cabirada caadiga iyo mastarada ay waxaas iyagu ku samaysan yihiin centimeter ku samaysan inchna waa laga helaa marka sida caadiga waxaan isticmaali karnaa millimeter iyo centimeter baa isticmaali kartaa tusaale centimeter oo kale iyo door book coverkii markaan sameynayo book A5 wax sameynaya 21 iyo wax ka dhigaa ma wax ka dhigaya 30 iyo wax ka dhigaya 21 that's 300 maalkaan ka dhigaya saasa waxa igu sameeyay book coverkii then hadhow baan waxaan u sameysanayaa qaabkii aan u soo halka ka dhexda kala ku sameeyay dhinacaan waa dhinaca coverkii markaan